mowqifka madasha xisbiyada uu ka qabo shirka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ay ku leeyihiin madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya kana mid a mas-uuliyiinta sare ee madasha xisbiyada qaran ee dalka oo ugu horeyn ka hadlay shirkii maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa uu sheegay in uu cad yahay mowqifka madasha xisbiyada uu ka qabo shirka magaalada dhuusamareeb isaga oo mar kale ku celiyey in wakhtigeeda aysan dhaafi karin doorashooyinka la filayo in dalka laga qabto. madasha mowqifkeeda ku aadan doorashada ma qarsoona. qoraal ahaanna waa horaan ugu sheegnay, marar badanna idaacadaha waan ka sheegnay. shaqooyin badan oo ku saabsan doorashada oo muddo hore in lasoo qabta ay ahayd oo lasoo qaban waayey ayaa jira. maanta waxaan joognaa muxuu ahay bishii July yaan sii gabagabadeedii aan kusii jirnaa. August iyo September, October 15keediina waa waqtiga oo senatorka ama xildhibaanka ugu horeeya baarlamaanka waqtiga la doortay waaye. ilaa muxuu ahay sida la sheegay December aakhirkeeda laga gaarayna waa baarlamaanka xilligiisa waa ku egyahay, madaxweynuhuna waa kasii dambeeya. waxa asalka doorashada Soomaaliya ka asalkaan waa baarlamaanka. haddii baarlamaan aanu joogin, jidkan aanu ku soo jirin oo aanay muuqanin sidii baarlamaan ku imaan lahaa, waa arrinta khatarta leh oo aan ka diidnay in firaaq dastuuri ah oo crisis cusub dalka galana in badanaan ayadana aan dowladda iyo hoggaanka maanta jooga uga dignay. laakiin weli waxba kama soo 3 sano ay bartii la soo dhaafana waxba lagama qaban. maanta oo gabagabadii la joogana weli wadada la aaday 4 su'aalood aan sheegi jirnay weli jawaab looma hayo. dhuusamareeb waxba ka socdo labadii muxuu ahay lakab ee dowladnimada Soomaaliya ay lahayd dowladda dhexe iyo dowladda isugu tagay. waan rajaynaynaa muxuu ahay in ay wax fiican oo ummadda Soomaaliya ku farxaan oo ummadda u fiican oo dalka jiha u yeelo oo ka jawaabo su'aalahaas inay ka soo baxaan. waan rajaynaynaa haddii alla yiraahdo sidaasaan ugu ducaynaynaa. laakiin sida rasmiga madasha mowqifkeeda waxa waaye doorashada maadaama wixii in la soo qabto loo baahnaa la qaban waayo, doorasho kasta noocay doonta ha ahaatee oo inta laga wada tashaday dadka Soomaalida isku raaceen oo la isla ogolaaday, ma aha inta dhuusamareeb joogta kaliya macna inta ka maqanna inta loo soo bandhigay oo loo yeeray ama loo yimiday laga tixgeliyay ogolaadeen doorashadaas madasha doorasho ah.